dagaalku wuxuu marayaa in ka wadageeyo Somaliland xudun iyo taleex iyo waxa weeyaan tuqaraq iyo gambare iyo hidlada iyo boocme iyo kalabeed iyo wulid intaaba iyada ka shaqeynaysa joogtay degmada waxaaba intaan soo deegnay waa dadka gooja cadeel yahay godka naarta isaaq ama godka naarta habar jecel iyo habar awal nimanka garxijis waaba ka saaraya anigu waxay halka rabaan in inta hadhay muuse saysan ugu soo noqon isaga uu khilaabin lagu shiilo laas aanood qarax yimaada iyo dibad timaada madaxdii yimaada horta SNM iyo Somaliland la socday awood military Somaliland laas aanood kuma iman gacmo siyaasadeed iskaashanaya oo SNM waqtigii hore ay joogtay TPLF niman la oran jiray Ethiopia oo inka la gaabin tiray iyaga laftooda ayaa SNM waxay u siiyeen laas aanood in niman halka ay ku guuleysan jireen oo ay si xeel dhaqan jireen oo aanu ilmaayeernahay wada dhalanay walaalanahay oo ogaadeen la yiraahdo ona naf la yiraahdo in maadaama SNM iyada wixii ay qabato Hargeysa iyo Burco ku qabato intii ay xabsi ku rido Ethiopia gacanta gelin jirtay laakiin laas aanood ma nasameyn jiray sida dad nala dhashay inaanu anagu qasaasno oo qaadno dibadashanu ka xignay laas aanood waxay u ahayd magaalo ay leeyihiin waayo maadaama dadka aanu isku haybtanahay walaalahannahay dhibaatada lagu hayay waxaan xusuustaa anigoo nin yar dhalinyaro ah daahir riyaale ninka loo oran jiray madaxweynaha ka soo maray Somaliland in laas aanood yimi in iyaaladiisa qayb ka mid ah lagu dilay uma suurta gelin in laas aanood saacad jooga gudihii dad wax ka yar baa laga saar cali waxaad nagu warantaa xaaladda guud ee sool intii ay Somaliland joogtay adoo soo koobaya sawir guud naga sii waa mahadsan tahay aniga cali Yuusuf cali Marateen waxaan ka warramayaa xaaladda guud ee Somaliland markay ay ama SNM ay joogtay laas aanood ama waqtigii ay timi taariikhda waxay tii SNM laas aanood 2007 bishii 15 laas aanood waxay ahayd markaa SNM timi magaalo dhaqaale ahaan iyo magaalo ahaanba kor u socota oo koraysa kadib imaanshaheedii ay timi magaalada waxaa dhacay isbedel challenge gareeyay dadkii deegaanka ku noolaa ama degmada laas aanood deganaa inay ka qaxaan iyagoo ka qaxayay markaa dhibaatada iyo cawaaqib xumada Somaliland ifafaalaheeda ay iyagu ka sifaysteen oo markaa la oran karayo dadkii waqtiga laas aanood ka tagay Somaliland maanta sax u soo gashay magaalada ka baxay waxay ka nasiib badnaayeen oo ka aragti dheeraayeen dadkii magaalada ku haray iyo kuwii Somaliland la shaqeeyay kuwaas ka aragti dheeraadan qaba anigoo taa macnaheedu tusaale u bixinaya intii ku hadhay laas aanood ee cilmiga iyo diinka iyo ganacsatada inay Somaliland markii ay muddo 2 sano ah joogtay magaalada inay wax ka dhiman yihiin 2007 bishii 15 Somaliland laas aanood awood military Somaliland laas aanood kuma iman gacmo siyaasadeed iskaashanaya oo SNM waqtigii hore ay joogtay TPLF niman la oran jiray Ethiopia oo inka la gaabin tiray iyaga laftooda ayaa SNM waxay u siiyeen laas aanood in niman halka ay ku guuleysan jireen oo ay si xeel dhaqan jireen oo aanu ilmaayeernahay wada dhalanay walaalanahay oo ogaadeen la yiraahdo ona naf la yiraahdo in maadaama SNM iyada wixii ay qabato Hargeysa iyo Burco ku qabato intii ay xabsi ku rido Ethiopia gacanta gelin jirtay laakiin laas aanood ma nasameyn jiray sida dad nala dhashay inaanu anagu qasaasno oo qaadno dibadashanu ka xignay laas aanood waxay u ahayd magaalo ay leeyihiin waayo maadaama dadka aanu isku haybtanahay walaalahannahay dhibaatada lagu hayay sidaa darteed SNM waxay ka shaqeysay markii hore in badan isku dayday waqtigii Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa ee Puntland iyadoo markaa maamulka Puntland qaybo ka mid ah ay ku sugnaayeen magaalada in ay magaalada awood ku qabsato waxaan xusuustaa anigoo nin yar dhalinyaro ah
daahir yaala ninka loola jiray madaxweynaha ka soo maray Somaliland in la sacadiyay in ciyaaladiisa qayb ka mid ah lagu dilay uma suurta gelin in la saacad saacad jooga gudihi dad wax ka yar baa laga saaray isbeddelkii dhacay Cabdi Muuse madaxweyne ka noqday Puntland arrimo markaas siyaasadeed ayay la saacad gudaha ugu timi Somaliland oo ay soo uga dhigaysay inay la saacad fadhiisan tahay ONF iyaduna ONF ay TPLF u liibto oo Hargeysa iyo Burco iyo Berbera bay ka weerari jirtay markaas sidaas ay la saacad Somaliland ku timi waa tahay cali in dhalinyaro ah goobjoog u ahaa wixii ka dhacay laascaanood iyo soolba waa tahay maxaad ku soo koobi kartaa sababaha dhaliyay kacdoonka SSC bal dhacdooyinka aad goobjoog u ahay horta dhacdooyinka aan goobjoog u ahaa wax la soo koobi karayo maahan anigu waxaan ahay nin laascaanood ku dhashay dugsi sare kaga baxay ku guursaday caruurtiisii ku dhalay weliba ay joogaan baana waxyaabaha ugu badan markii ugu dambeyd 3 sano ka maqnaa oo aan ku maqnaa goboladooda waqooyi gaar ahaan Hargeysa iyo Burco 3 sano ku maqnaana iyaga shaqaale uma ahayn waxaan u shaqeynayay hay'adaha madaxa bannaan hay'ad kamid ah iyo qayb kamid ah hay'adda MBA iyo hay'adahaas u shaqeynay laakiin waxyaabihii intii 3 sano iyo intii ku horeysay anigu aan u soo taagnaa xawiyaan qofkii ugu horeeyay la dilo laascaanood lagu dilo oo liya madaxdii baa dilay wuxuu ahaa Allah in xariistay madaxii sirdoonka gobolka suxufi buu ahaa 2009 baa la dilay waxaan xusuustaa markii la dilay suxufi waxa la yiri suxufi baa la dilay suuqa lagu dilay wax lagu cusub bay ahayd markaa barqsi baa kacay dadkii waa la isweydiiyay maxaa dhacay yaa la dilay suxufi baa la dilay waa la yaacay isla waqti yar kadib arintii waxa la yiri ninka madaxdii baa dilay waa markii koobaad way soo socotay min abdaal la yiraahdaa haddana la dilay oo ku xigay waxyaabaha la yaab kale SNM ama Somaliland waxa u taliya niman jamhad noqday oo soo jamhadeeyay oo dhibaato badan iyo cawaaqib xun oo fara badan ka soo shaqeeyay Soomaaliduna sideedaba been way sheegtaa laakiin been ma mahdo qofku hadduu xumaan ka shaqeeyo ama wisil xun uu soo galo wisilkii xunaa kama badnaado markii abdaal la dilay waxaa dhacday nin markaa samaroona oo gudabiisay reerka la yiraahdo ayaa madaxweyne ka ahaa Somaliland daahir yaale nin la yiraahdo isaaq uu kacay daahir yaale ku kacay iyadoo markaa xisbi kulmiye la yiraahdo oo nimankan SNM iyo ina kaahin kan hadda haysta iyo muusahan iyo ay markaa barnaamij guud abaabuleen ah in min samarooni aanu u talin karin oo aanu madaxweyne u qalmin una noqon karin xukumi karin iyadoo taa arrimo siyaasadeed kale ayaa nin Ismaan Afdhilo la oran jiray oo taliyaha aaga bari ahaa booska Cali Barre haystay baasuuqa laascaanood dhiif sukadeeda lagu qarxiyay ilaahay naxariisto u dhintay ninkaas laascaanood qarax yimaada iyo dibad timaada madaxdii yimaada horta SNM iyo Somaliland la socdeen ninka markii la qarxiyay waxyaabaha nasiib darrada ah ee aan ku yiriyoonay galabta waxa kamid ah aniga adeerkay Cabdifataax Muuse Yuusuf oo iyaga u shaqeynay oo qaybta CID da joogay oo nin la yaqaan ah ayaa kiiska loo xiray hadda baleed wuxuu xiray yahay imika muddo 15 sano ay laascaanood ka tirinayeen 12 sano ama 13 sano oo kamid ah been sheegi maayo wuu xiray waxa la yiri ma ku dhaaranaysaa ninkii inuu qarxiyay ma yidhaahdeen de muxuu qarxiyaa waba wax aana inay iyagu dileen oo waliba kuuliya dilay isagoo u adeegsanaya markaa laascaanood inay ahayd meel markaa Somaliland dadka shacabka ay ku nool aysan rabin oo aysan doonin markaasi ninkaas la uga soo jeedi beel aan dirisnahay liyaaba habar jeclo oo aan oreeyadnahay oo diblo imikana iyagu noogu daranba markaas sidaa dirteed si halka fulkaan uga qarxo ayaa ninka odayga ah loo dilay waxaana si daraa culimo uqaal wax garab
cid walba waxay iskugu tagtay Hargeysa waxa lagu yiri xataa mad baan ugu siinayna wallaahi billahi taala meesha ilaahay naga soo celiyo waxaan oran karayaa haddaan hadalka soo koobo af iyo xaas intaan galladaan annagoo nool ka soo noqon laakiin alxamdulillah dhacdooyinkii dadka tirada badnaa ee laascaanood lagu dilay cali waxaad ii sheegtay inaad madaxdii Soomaaliland ee markaas joogtay laascaanood aad la kulantay maxay idin dhex maray maxay doodoodu ahayd si arintaas wax loo arintaas waxay ahayd doodooda horta wixii waxa qof la dilo ama madax degdilay waxa ugu dambeeyay Cabdifataax Cabdullaahi Aw Faarax oo ahaa aniga seedigay walaashayna qabay ilaahay horta ha naxariisto jannatul firdawsana ka waraabiyo waana ninka mideeyay dhiiga dhulbahante iyo ka harti ee maanta halka maraya horta ilaahay jannatul firdawsana ka waraabiyo alle madaxda waxyaabihii aan kala kulmay waxa koow ah qof laascaanood ugu dilay waxa ugu horeeyay suxufi qof lagu dilay hadraayo ugu dambeeyay been sheegi maayo qof gal dacwadeed leh oo Soomaaliland inta u tagto gal dacwadeedkiisa ay ku furaysaa ma jiro oo laascaanood gal dacwadeedkiisu yaalo macnaheedu markaa waxa weeye in wax xog ah aan kooban kacdoonka intii socday waxa ugu daran ee aan aragnay ee ugu weyn waxa weeyaan biliiska wax la yiraahdo waa saaxiibka bulshada waana adeegaha degmada ama gobolka biliisku wuxuu u shaqeeyaa ka hortag iyo ka daba tag falku markuu dhaco wuu ka daba tagaa intuu san dhicinna xog buu helaa waxyaabaha nasiib darrada waxaa ka mid ah Soomaaliland dilkan waxa iska kaashan jiray laascaanood laga fulinayo nin Axmed Aakhire loo oran jiray oo joogay buurta khaarijiga hoosteeda oo nin habar awal ahaa oo madaxtooyada toos ugu xidhnaa iyo ciidanka birmidka iyo qofka fulinaya biliisku markaa ciidanka birmidku ninka dhulbahantee la soo magacaabo ka madax banaanaa nin isaaqa xukumi jiray maxaa kan dhulbahantee ee biliiska laga soo magacaabo waxa laga soo dhigay qof aan aqoon lahayn laa yaqtu walaa yaqra qof aan waxna qorin waxna akhriyin qof gaajaysan oo duruufaysan dowladda Soomaaliland qofka waxay ku qafilaysaa marka u horeysaba horta dadkiisa inay adag yihiin oo dadka laascaanood ku nool boqolkiiba 99 waxa la oranayaa waa argagixiso waa shabaab lay qabo because iyagu waxa ay rabaan falkoodan argagixiso iyo falkan arxanxumada ay wadaan in ay iyagu fuliyaan ee uu fuliyo uu adeego u noqdo qof aqoon leh iyo qof wax weeyaan gobolka u dhashay oo ah qof la oran karo waa labeenta bulshada waxa Soomaaliland ma dhigto waxna kuma aaminayso because qofka damiirka leh ee dadkiisa dareenkooda ku shaqeynaya waxa ay ka shaqeynayaan ama waxa ay madaxdan wadaan uga adkaysan karayo guriga gobolka waxa soo fadhiisanaya taliyay aaga barini sheegan la Cali Barre leeyahay bal ana barasaaba ana madaxweyne ka xaqo Cali Barre ka soo fadhiisanaya oo maxaa isoo dhinac fadhiisanaya guddiga bilada xaguusa ka soo gala Cali Barre waxyaabihii ugu nasiib darrada waxa ka mid ah kacdoonku markuu maalintii koowaad kacay anaga meedkii noo yaallay hadraawi ilaahay naxariistay aasan ayaan waxaan anaga cuqaashi beeshiisa ahayd wadna meesha la yiraahdo guriga gobolka waxa yiri dad kadib 10 daqiiqo gudahood taliyay qaybta ordaya wuxuu yiri mudaharaadkii aan xakameyn kari weynay waxa yimaadeen laascaanood way burburinayaan Cali Barre intuu istaagay ka soo baxay ciidankaadana ka soo qaad ciidanka militariga aan u diray militariga talaabo ka qaaday dadka mudaharaadaya shacabka waxay ahaayeen dad reer laascaanooda dad hadday wax burburinayaan dawladooda deegaankooda burburinayaan kadib wuxuu yiri ana talaabo ka qaaday haddaan hay Cali Barre talaabada aad ka qaadaysaa wadiyo xarim maxaad ka qaadaysaa dadkan waa dadkii deegaanka u dhashay dadkan mudaharaadayana walaalkay dhigiisa mudaharaadaya wuxuu yiri waxay adiga lagu weydiinayay waxaan ku leeyahay markaad waxa weeyaan dhashiika iyo shilka adeegsato waxa ka yimaada hadawayna ku arkaaday hoos ka galanaya baan ku yiri oo waxyaabihii aan la kulmay beel marxaatigiisu fogeeyada iyo rabbi odayaasha way joogaan oo xaadir cali dagaalku in muddo abu socday maxaad noo sheegi ka dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dagaalku intuu socday laga diiwaan galiyay dhacdooyinka ugu waaweyn laga diiwaan galiyay waxa ugu weyn horta qof xabad ridaya oo qoslaya faraxsan qof aabihii la dilay oo meedkiisii intuu u yimi iyo qoriga aabahay
وحبطها هوريك السيقالي قبل ولالك يميده انت أسوى قشي انت مرضك قاعدتي ولالك يميده الشيدي الله ونحرسته waxyaabaha lagu diiwaangelin karo waxaa ka mid ah ismada SSC khaatimo maamulka argagixisada SNM waxa ay waxyeeyaan ku sheegan dadka deegaanka inay wadada argagixisa in ismadii ay waxa ku sheegayeen maxaabiistoodii ay iyagu laga qaftay iyagoo noo in lagu wareejiyo waliba reerka noogu daran habar jecel la yiraahdo waxaad ii sheegtay Soomaaliland intii joogtay laascaanood inay xeelado badan u isticmaali jirtay dadka iyo deegaankaba si ay u sii joogto maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah kow horta inay dadka u samaysay ciidan beeleed reer walba oo ciidan beeleedka mushaharka iyo shidaalkaba ay iyadu siiso labo waxaa ka mid ah in marka guriga gobolka kale la isku yimaado ay yiraahdaan magaalada waxa iska leh annaga oo waxyeelay laascaanood aan uga dambeynaa jaacsiyaad hada jaacsiyaad bilbaanti marka ay jaacsiyaad xooga ay ka dareemaan inay isku dhaceena inta guriga gobolka yimaadaan yiraahdaan magaalada waxa iska leh bahar samee waa waxyaabaha ma ogtahay munaafiqiintu ay ku shaqaystaan ee iska horkeenka bulshada kasoo waxyaabaha waxa ka mid ah inay maalmaha qaar wasiirada markay yimaadaan oo kale yiraahdaan wasiirkii magaalada yimi annagu cid kale wax ka weydiinayna laascaanood ugaariyahan baa laascaanood iska leh hadda laascaanood waxa degan waa bilbaantay fiqishin iyo deela la dego kale oo Soomaaliyeed waxa ay wada walaalaan maxaan walaalo ku nahay inaanu nabadgelyada iyo amnigeeda iyo horumarkeeda ilaashano Soomaaliland laakiin iyadoo cashuur dhaqaale wax walba dadka ka qaadaysa ayaa hadana dadka iyaga waxay adeegsan jirtay xagga xun oo ah in qaybi oo xukun علي واحد إيش كتير سفر كوسو مرتي deegaanada Soomaaliland iyo gobolka Soolo hadda Soomaaliland aysan ka talin oo gacantooda ka baxay halkaas deegaanadaas aad tagtay maxaad ku soo aragtay maxaa tabasho oo ka jiray gaar ahaan sida gobolka Awdal oo kale iyo warantay mar aad safar aad ku tagtay gobolka Awdal anaan xagga uga bixin gobolka degmada ma dhaafin berigii hore laakiin laba kun iyo koob iyo labaatan bishii toddobaad ayaa nin Saciid leeyahay Hargeysa joogo nin habeeniyo Saciid Silaan leeyahay wala wada garanayo waxa la deelay marxad ku sii fogaya ayaa wuxuu diray muddo 5 cisho shaqo ah inaan u baxo gobolka Awdal waxaan tagay meel bak leeyahay laba marka aan joogo shaqeynay la socday magaalada bak leeyahay berigii hore gobolka ku shaqeyn jiray dawladda Soomaaliya waxa ay magaalo waxyeeyaan dawladda Soomaaliyeed macaankeeda dhamisay kadib waanu nini marka magaalada dhaan baa lagu qoday meel u dhow xoolaha jirta dhaamka hay'ad fowl leeyahay bixisay fankiisa wasaaradda beeraha iyo waxay soo marisay dabadeed nin oday oo magaalada gudoomiye ka ah oo ilaa 6 jira ayaa agteeda soo fariistay wuxuu ku yiri maxaa loogu socoteen waxay ku yiraahdaan dhaamkii la idin qodayaan doonay wuxuu ku yiri dhaam meelida qodine xirfadda halka looga farfaadeen lacagtayadiina Hargeysa iyo degmada lagu qurxinaya wallahi ma ilaawin ninka odaga aw xasan baa leeyahay wuxuu yiri laakiin waxaan ka yaabanahay niman halka xiga oo barafka xiga oo leeyahay dhulbahante laascaanood iyo ergaayo buu hoola dega iyo nimanka iyaga gobolka Awdal dega goorta aanu Soomaaliland ku kacayno ee Soomaaliland aanu ka go'ayna ma fogeeyay runtii hadalkii wuu igalay odaga marka aniga xogaa nin luqadeedii ku yara hadlo oo wiigeedii haya baan yara ahay wuxuu markaa waxaan u qaatay hadalka uu leeyahay aniga wuxuu iga soo qaaday oo nin isaaqa markaa dabeena waxaan ku yiri adeer gobolka nimanka gobolada darafyada ma dhibaatay qabaan waliba laascaanood wuxuu yiri wallahi laascaanood haddaan kaaga waramo meedhii ku yida joogo kuno laakiin xogaa ku falagti ka badan oo caburinaya baa jira ninka odaga kelmadiisii iyo maanta meesha ay xaaladda marayso waxaad moodaa inuu wax badan sii ogaa waa xusaya maanta haddii la yiraahdo Soomaaliland sidee bay u maareyn jirtay mashaariicda gobolada
intii ay sool joogtay iyo deegaanada kale Somalilandba waxaa ogtihiin Somaliland horta mashaariicda gobolka Sool waxay u maareyn jirtay laba wax qaybi xukun iyo dulmane inta la sii dulmiyo ugu dulmeeyahay baan nahay dadka reer Laascaanood iyo reer Boole iyo reer Sanad waxaanu ahayn noole ama dulmane lagu sii dulmeeyahay markaan sidaa leeyahay hadalkayga wax weeye mashaariicda ugu ku bixiso boqolkiiba 70 soddon bilyan ay soo marin jirtay marmarmiyaan inta dambeeda laga jaray Somaliland ay soo marin jirtay Hargeysa ninka jooga wasaaradda qorsheynta jooga wuxuu ahaa nin Isaaqa wasaaradda waxbarashada ninka joogaana wuxuu ahaa nin Isaaqa wasaaradda caafimaadka in yar uu xageed toosiye joogay markaana dee xageed toosiye lagu qaboojinayay in kala deelki SSC hadeer waxay odayaasha ugu weyn ah mooyaane inta kale Isaaq baa joogay mashaariicda boqolkiiba 80 waxaa la gelin jiray Burco iyo Berbera iyo Hargeysa ayaa laga furin jiray waxyaabaha aan cadeynta u hayo waxa kamid ah in aan anagu wasaaradda qorsheynta 2022 bishii tobnaad 2022 bishii sagaalaad aan ka soo qaaday Hargeysa si daatadii 2012 markii ay joogeen Silaayo iyo Xilsi iyo madaxweynaha ay ka ahaayeen SNM daatadii soo laga qaaday si loo saxo wasiir buuxana laga sameeyay oo marka ay leeyahay samaroontu iyo SPNimadu wax badan baa jira ninkaas markuu yiri waraaqadeedu eeday daatadeedu eeday hay'adaha loo diray sarmaayo meesha la yiraahdo waxayaan caroolay meesha la yiraahdo waxayaan badaalo baldablooyinka waxayaan shaxda dhammaantood way ka maqnaayeen iyadoo lagu bedeshay magaalooyin ka mid ah gobolka Togdheer hoostaga bal rooble balgeedi hadda way qoran tahay sarmaayo laakiin mashaariicdeedii waxa laga dhigayaa yoonka looga dhigayaa inay fulinayaan oo ka fuleen maxay Sool maadaama ninka kormeerka uu yahay nin Isaaqa ninka mashruuca soo qaaday ee Hargeysa la soo mariyay uu yahay nin Isaaqa sidaa darteed waxay ahaayeen oo la oran karayaa waxyaabaha ugu daran in dhammaan tii aan iska ahayn dad qowfoofo iska maran ilaahay laakiin uu mar walba leeleeyay ay dad badan waxay isweydiinayaan maxay tahay sirta ka dambaysa adkaysiga beeshan u baahantay inay kaligood muddo badan intii dagaalku socday 3 bilood ku dhow ay kaligood la dagaalamayeen Somaliland oo 30 sano jirta inta aanu gurmadyadan kale ee beelaha uusan u iman sirta ka dambaysa horta sideedaba waaniga idinku ori ilaahay inna ma dulmiyo ilaahayna dulmiga ma jecla adkaysiga wuxuu ahaa mid ku salaysan in aanu diiday dulmi ma lagu sameeyey in dulmigii markii uu qarsoodigiisii iyo qarshashadiisii ay iyagu soo dhaaftay anaga la soo gaaray in ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aan anoo sooman ugu mahadnaqayo inuu ilaahay macayaga ku noqday daacadnimadii iyo cibaadadii iyo ducadii aanu la nimi iyo ismadayadoo qalbigoodii iyo quluubtoodii si miisaan iyo nadiifa isu laab xaaday halgankana mar walba shidaal lahaa iyo dadkii jamaahiirta ahaa ee aanan marnaba ilaaweyn ee halgankan iyagu sababta u ahaa intii dhimatay Allah ha naxariisto intii dhaawacantayna Allah ha bogdhayo mar walbana iyaga laf dhabar u ah laakiin waxa halganka mar walba shidaal u noqonayo baatrool u noqonayo waa daacadnimada iyo dulmigii goboladan lagu kacay taa waxaan ku darayaa in yar oo ah dad baa waxay aaminsan yihiin aqligoodu gaadhay yahay beesha dhulbahante inay diiday in Isaaq xukumo ama ay diiday in Isaaq ay ka mid noqoto Isaaq 12 sano bay madaxweyne ka ahaayeen Somaliland laba meel maadeer ahay Musabbix iyo Silaayo 12 sano dulmigaas aan ugu socday waxaan ahayn dad la dilayo oo la dhacayo oo la cunayo abeeso iyo guguli iyo jilbis ay isu bedelayaan baan ahayn haddaan markaa xukunkooda diidanahay intaan TV-ga soo istaagna ma nidhaahno sida ay u jirtay samaroon nama xukumayso annaga Isaaq nama xukumayo la waxaan leenahay waxaanu anagu u baahanay inaanu ummadda tusno inaanu dulmi iyo dhibaato
mooyaane aana Somaliland iyo SNM wax faa'iido aan ku qabin intaana waxa la dadka u haysta inaanu anagu nahay dad isirnacayb iyaga u diiday xukunkooda wata cali maxaad ka oranaysaa Somaliland waxa ay beelaha harti ay ku sheegtaa inay yihiin sheeyo lascaanoodii maxay soo wadan leedahay Somaliland horta waxa aan oranayaa arabka u taliyo horta dadka Hargeysa iyo Burco iyo ku nool Berbera aniga laakiin kan iyo maskaxdayda ay taliya markaan saa leeyahay anigu waxaan ahay wiil daarooda waxaan ahay nin hartiya waxaana ilaahay yiri waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu markii la sadal cisho hubka noociisa kala duwan leeyahay adeegsanay walaalkayga ugu dhow 8 kilomitir 10 kilomitir buu jiray ma jartaan buu ahaa walaalkayga ugu dhow warsangeli buu ahaa 100 kilomitir ka yar buu jiray marka iyagu wixii ay dhuusanayeen baa Somaliland xaar ku noqday oo ahayd dhulbaxante waa dad yar oo kooban oo muddo 5 cisho markaad xabad ama wax noocaas ah adeegsataan iska dhamaanaya laakiin waxay halka dhigan dhulbaxante inuu isaga mooyaan 6 kale oo hartiya la dhashay daaroodna uu xagga sare ka daawanayo ciyaarta u fadhiyo waxaana aan ku faanayaa galabta oo hareerahayga iyo dhinacayga jooga dadkii aan wada dhalanay ee harti runtii wuxuu yiri nimaan harti aqoon baa hadalada qaarkii yiraahda waxa ka yeersiinaya anigu Somaliland iyo Hargeysa dadka ku nool si aan baan garanaya sideen habrood baa Hargeysa ku nool sideen habrood afar baa ugu yaaween waa habar shaclo iyo garxis iyo habar awal iyo reerka liyaa arab reerka garxis liyaa qayb ka mid ah hadasho waxay yiraahdaan dagaalka la socod ka socda waa dimi qayb iyadu bee ma jecelaho ku jirta xukuumadda Miyaane laakiin reerka aan la yaabanahay ee galabta aan kelmad gaar oranaya waa reerka liyaa habar jeclo waxa la habar jeclay horta ilaahay baa iskaan baday diris weyn waxayn dhulbahanta intuu idinku soo diilay dhulkiinii ma qabsan waxa daawatay malaynay aad aragteen Mustafa Khayriye iyo liyaabo habar jeclaayo leh laascaano dadka la bilaynay isirnacayb loola dili jirin aniga yarkii baan gudilay yarkii aad dilay dadka laascaano lagu dilay aad horta dilay Mustafa Khayriye waxaana kuugu cadeynaya dalil ku ah hadii ilka laascaanood SSC aynaba soo raacdo waa tusaale dhow aan sax fahansiinay kala fahmi maayaano waa ummad foorartana lameeyo waxaan difaacsiinaya waxaana raba inay taariikh ku yeeshaan oo taariikh u sameeyaan niman aan taariikh lahayn oo wiligeed inay caano lo'aad iyo caano boore iyo subag mooyaan iyo kalluun ay qaataan oo leeyahay habar awal mooyaan aan wiligeed xabad cid qush kaga sii baarta ku yiri habar jeclay isku kaaya beego taariikh loo raadiya halka garxis diiday taa iyo arabo iyagu daba socda kuwa labada buu daba socda Soomaaliya garan laakiin anigu min hartiya baanahay min daarooda baanahay laascaanoodna waxa jooga waa ilmaharti waa kuwii lahaa waa kuwii dhashay waa kuwa ku dhalan doonaan kuwooda hadii la haydo nimada maanta ka dhex jirta dhulbaxante iyo beelaha kaleba guud ahaan beesha dhulbaxante maxay ugu fadhidaa horta nimada dhulbaxante waxa ilaahay baa horta keenay waxaana keentay jamaahiirta waxaana keenay dulmigii Somaliland waxa loogu fadhidaa oo naga qaalsan tahay wallahi billahi tallahi dhiigayga aniga dhiigayga hadii dhulka uu ku dhaco ilaahay baan ku dhaartay waa Soomaaliya waxaan maanta ka xigaa inaan istaydilo in nimada bahanta iyo nimada harti la waayo inaan anoo noo istaydilaan ka xigaa waxaana iigu fadhidaa wax aan isleeyahay in kala soo koobi kartid waana ka murugoonaya inaan anigu hartiya aan in badan lahaa isaaq baan wax wada leenahay aan dirisna arinta waa ka murugoonaya astaghfirullah bilowday waxaad sheegtay in badan inaad waxyaabo gaar ah dhinaca Somaliland kala kulantay kula soo xiriiraan marka qaarkood ku soo hanjabaan xaadi ku gaara shakhsiga dhalinyaro ah oo martay maanta wax uu iyaga gudban yahay aysan jirin wallahi horta aniga inay ii soo hanjabaan mobilkaygu wakaa boqol iyo konton jeer bay ii soo hanjabeen laakiin hadda anigu xabad baan ugu hanjabayaa xabad baan la dhacayaa xabad baan naga dhaxaysay kuwaas aan ku tasbiixsanaya horta hanjabaadeedu anigu qof u joojiyay laakiin waxa keenay
anigu burcan deganaa waxaan haystay buri cad iyo gaari cad iyo gabadh cad oo waxa weeyaan burca ah ayaan ku noolaa joogay daliilkeedu ima siin dadnimadeedana ima siin inaan beesha dhexe waxa ay waday ah in dadkaygana ay duqayso aniguna halkaa aan ku jiro ku raaxaysto oo aan noqdo qof buri cad iyo gabadh cad iyo gaari cad ilaashada laakiin waxaan taa ka doortay inaan dadkayga iyo dhulkayga iyo deegaankayga aan ku dhinto kana warramo waxaan ku arkay argagixisada SNM oo ah waa dulmi waxay wadaana waa dulmi waxay ku jireenna waa dulmi taana weligood hadday wadaan haddaan noolaadana waxaan u sheegayaa anigu ragga gaarka ayaan magacaabi doono maalinta SSC khaatumo dhigibada loo taago oo si wacan loogu taago baynu xisaabtami doonaa haddii la yidhaahdo hadda xaggee ayuu marayaa dagaalku goosha cadde kadib maxaa u qorshaysan reer SSC dagaalku wuxuu marayaa imika wadageedo Somaliland iyo Xudun iyo Taleex iyo waxa weeyaan Tuqaraq iyo Gambare iyo Hidlada iyo Boocame iyo Kalabeed iyo Wurigid intaaba iyaga ka shaqeynaysa joogtay degmo wahay waxaaba intaan soo deegnay waa godka gooja cadeen yahay godka naarta Isaaq ama godka naarta habar jecel iyo habar awal nimanka garxijis waaba ka saaraya anigu waxay halka rabaan in inta hadhay Muuse saysan ugu soo noqon isaga uu khilaabin lagu shiilo SSC-na waxa u qorshaysan markaanu nimanka gooja cadda ka saarno oo deeyno waxa weeyaan inay noqoto maamul madax bannaan oo ah maamul dawladda Soomaaliya hoostaga isagu wuxuu u taagan yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo inuu ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda isu keeno kana shaqeeyo una noqdo maamul ku salaysan cadaalad sinaan iyo hufnaan dadka reer SSC-na waxay u dhimayeen aysan noqon in mar dambe dad iyaga la mid ah lagu soo yaarido oo meelo kale wasiiradooda iyo barasaabadooda laga keeno cali fariintada u dambaysa yaad u diraysaa horta fariintada u dambaysa waxaan u dirayaa kow awalan dadka jecel midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya oo mid ah oo walaalo ah oo hal meel iskugu wada imanaysa horta Ilaahay intuso waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dadka Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa kala jooga ee dulmiga laascaanood SNM ku samaysay ama xasuuqay ka geysatay heelka mid af mid gacan mid cudud midna la garab istaagay waxaan leeyahay waad mahadsantihiin iyo kuma soo koobi karayo insha Allah haddaan noolaado waxaan rajaynayaa dad badan oo aan magacyadooda soo koobi karayn iyo ummadda Soomaaliyeed wixii aan ka gaadno insha Allah ta'ala gabasha laascaanood oo calankii Soomaaliyeed yaallo inaan idinku yeero oo aad soo fadhiisataan haddii Ilaahay haddaan noolaado intaasaan leeyahay